farmaajo anu kursiga kugu haysano madaxweyne kursiga kugu xawaadla kugu haysto nadaf allah haduu alla yahay naga aal war naga hawlaha haduu alla yahay dadka kuula jooga fil Soomaaliya oo dhagaha wax kugu sheega oo hatta tuula ku lahayn hiiraan oo ana hiiraan ka soo kacay ku leh oo ana hiiraan xildhibaan ka ah leh bafir inta meesha degan yahay intuu leeg yahay waxa uu yahay ma garanaysan kartaa garab ku noqon karaa cod ma heli kartaa meel habeen ma fadhiisan kartaa koob shaam ku shibi kariya war bal kuwa garabkaaga taagan oo ku qosla oo nacamlayaasha bal fiiri ya waxaan kugu la dardaarma xawaala dhaaf xawaalaha daawaydo Soomaaliya waydi xawaalaha daawaydo farmaajo Soomaaliya waydi farmaajo dadka fil Soomaaliya joogo oo garbaaga ah oo meesha kugu simo waxa waa la nicay aduguna hadaa meesha ka tagto kaala kuma leh wallahi subhi hadii lagu raacday kaala in ku lahayn meel adu orodana ma leh حوالنا يرانو كانوا وحقني كراش بدرك أسكعون يا وحن كلاه فرماجو كرسي جاء حوالنا السعودية كرسي حوالنا ناف والله كل شيء وقاسا كل شيء إمام كل شيء إسلام أبقى لنا ما هسي إمام كوا كسر ويدي بل إمام كتاده ويدي حوالنا حق حور بعده حوالنا هذه جا وحور به وإحنا كده حرب معنا أبقى المدير السنين أغاني أنت أبقى المدير السنين دقود أبقى المدير السنين وقاسد المدير السنين مدير السنين لكن واحد دقال سن وفرماج يحوالي شركان جرادو كل شاب سنيهاي وأيها برامج السعودية وهير سبيل هي الدولة الدحة هي بيش حوالي انت كده حيسب فيسبوك يعني براها بلشدة محوه هاي وريقاي وحن لنا هير سبيل الشلي وحبي أيضا الظلمة هاي وأن لقيها الشين baa wax mugdiya la dhiso daruufta maalintaas oo ay keentay haddaan dib looga wada hadlin oo iftiin aan looga wada hadlin oo wax la isla ogola ayna ka soo bixin yaanan isku dambaabin laba gobol oo deris ah inaan hayna labadii gobol oo deriska ah ku kala joogaynaa dulmi ma qaadanaysa hiiraan 30 sano dulmi gooniye qabtay 3 sano iyo barkaan dawladda xasan cali khayr hogaaminaya dulmi dheeriye qabtay 6 jeer biyo baxa ku soo baxday fataado ku soo baxday 5 jawaan oo faaruq ah oo hiiraan abaalgud uga dhigay 20 milyan oo jawaan ah oo nootile hiiraan biyaa waa isaga xiri karnay dawladda nacaybkeeda iyo dagaalkeeda waa aragnay tan hadda inay hirshabeel la qasto oo xawaale ay kula dirirto oo mugdi ay cawsto baa ka iftiiminayna farmaajo ka waantow madaxweyne Soomaaliya ta wadanka adigu malihid dalkana adigu malihid Soomaalina la mid ah tahay hogaami baan ku nuri waxaanu hadaa cadaalad gobolada iyo shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed mas'uulka ka tahay cadaalad hadaa nagu hogaami wayso cadaalad darad la kulmi aniga intaasaan ku leenahay rasuul wasaare cusub waxaan leenahay kii hore hiiraan raad uma reebin dulmigii horaha raacin ka digtoonow ummadda reer hiiraan waa dad dawladeed waa dad dawlad shacab waa shacab masaakiina 30 sano Soomaaliya ogtaabay dagaal Soomaaliya qabinay ku jirtay mid kale oo adkaysamayso waxaan leenahay dadkaas wanaagsan dawladda jecel leega meesha ka soo aasuusantay ah meeshii cadawga Soomaaliya markay soo qaxana hiiraan ku soo qaxjinay ku tashan jireen ah yaan la beer dareenayno xaqeedoodeen ida qabsan qolyahan xaq soor la baxay waxaan leeyahay war hadaad xaq sooraysaa shala markii abgaali xawaale ay door ku tashanayeen oo madaxweynaha qaadana caasimada iyo madaxweyne ku xigeen abgaalo qaatana xawaale saasaan qaadayna leedeen soo marqaati ka maadan haynaha waxaad ku soconaysaan waa dulmi qof waliba meeshu wax ku leeyahay wax la leeyahay dulmi xamar laga dhoodhoobay oo been lagu la wareegay oo joor lagu la wareegay ma shaqeynayo mana ka shaqeey doono shacabka beesha xawaale kor iyo hoos من الله قريب معه وبالله التوفيق شركة وجديدة سوحوية هاي ما وحلو الظلميو وأمد رنت اللي وش يجيو وأمد دناه ومد الله هذليو وأمد وحلو لسيو وأمد فرت اللي قلت هاجي عد كستاء وحقل ديس أما وحدي بيسو فرت اللي قلت هاجي وحال الربع نول با إنه سنهل ما من ميسان كلية هاي عندنا أنا الله الظلمين وجدد وحي تهي هيرشابيل مركي هرب السلوك أدق با لغا قبي سي أدق با سلوك لغا قبي أيضا سلوك لغا قبو الله أتكيسا ويسان يهي لدل قاتي لغا يمد وحي دعي يا واحد تمد لبا رك
laba rog in laga qaado waxyaabihii la cooscoosay meel la isugu keenay ee ummadda lagu midaynayay in laga rara halkay tiilay bini aadamku wuxuu soo dhoweeyaa qaybaha nabadda waxaan leenahay Hirshabeelle yaan wax loo dhibin wixii la cooscoosay yaan la kala daadin cidda aan reerka matelin oon raalli laga ahayn oo gacanta u taagan tahay gadaalna eegayso ka baqayso ha ka waantoobaana waxa deeqa waxay reerku raalli uga yihiin deeqe ha ka waantoobaana taas ayagaasaan waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ummadda ayuu mas'uul ka yahay nabadda deeqda ayada la rabaa inuu horseedo Soomaalida waa saddex fidna doon dawlad jecel hurdaay fidna doon waxa la rabaa inuusan raacin dadka dawlad jecelka ah dawlad ku noolka ah dunta Soomaaliya leh dadkaan inuusan laayicin madaxweyne Farmaajo dadkaan inuusan laayicin hurdaaye cidna waxuma dhibo ina laga kicin saasuu nabadgelyo ku yahay ina laga kicin hoos markaan u soo noqdo Hirshabeelle waxba isku darsatay tilmaamaa jiray dhib kastaba jiray wax lagu heshiiyaa jiray meeshii lagu heshiiyeen laga soo baadi goobe ahayd geedi fara badan oo wax ku dhismayno wax duminayo in lala gala faraha waa cawaaqib xumo ha laga waantoobo war dadka diriska dhaliya ka dhaxayso abtiya aysan waay in la isku diraa waana dhibaysaa aqli saliim oo isku dirkooda badbaadiyaha la yimaadiino qaasahan markaan soo noqdo beesha xawaadla waxaan leh ma rabto inay cid wax u dhibto ma rabto niman matali karin oo tala ehelkeeda ahayno inuu u dhuunto ka dhuuntar ma rabto waa ka soo horjeedaa inay Soomaalida la noolaatay rabto nabad bay ku baaqaysaa in nabad lagu wada noolaaday raalli ka tahay nin 45 kiilo 120 kiilo looma saariyo nin halay saariyalaha jiro kaasna in loo aqli celiyaa la rabaa dadku kala ma dhama nidaamka wanaagsan waa kii wax dhisayo kii wax duminaya ma wada wuxuu ka soo jeedaa intuugu u taliso dadan la dirsano u taliyo dadan tala ehelkeeda ahayno oo u taliyo ummadda maanta jirta inuu la noolaado oo wax dhiso oo wax hagaajiyana diyaar u yahay baaqaasan soo jeedinayno oo baaq caafimaad qaba ah oo baaq ciidan wax u dhibayn ah oo baaq wax dhisaya ah oo baaqan wax duminayn ah arrinkaas cid kasta oo arrinkaas aan soo jeedinayna uu taabanayo ha ka qaadata qaybtay leedahay ma aha dulun wax ma hagaajiyo qaybta dulunka ha la joojiyo nin walbana miisaanka uu leeyahay waa yaqaan waxaan rabaa si gaar ah inaan u eego dadka ilmaha aabbaha iyo hooyadu ay dhaleen kan ugu yaraa ugu dulun badan aabbahu ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo hooyadana waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo yarka ka weynna waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo ma garanaysaa waxa ka maqan si baas u xeeransaya dadka yaryar karaankurada nabadda qaaliya war nabadda hal qaato nabadda qaaliya war nabadda hal qaato nabadda qaaliya war nabadda hal qaato wabillahi tawfiiq Hirshabeelle shalay xawaadle kuma gelin heshiis madaxweyne markaa joogay ayaa hiiraan gaar ahaan xawaadle dad ka xaday dadku xaday ayaa shabeellada dhexe kula midoobay heshiis oo hal qodoba intiisa kalena ay dhinneed halka qodob wuxuu ahaa saddexda xilo ugu sareysa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka saddexda qabiil oo Hirshabeelle ugu waaweynu inay kala qaataan halka qodob ayay kala saxiixdeen xawaadlana markaa raalli kama ahayn heshiis kale oo buuxa ma jirin awood qaybsi baarlamaan ma jirin mid golo wasiir ma jirin mid ciidamada ma jirin
midda canshuuraha iyo nidaamka kale oo dawliga ah ma jirin waxaasoo dhan waa dhinaayeen meeshan ka sugaynin arinta la saxo waxa soo yeertay si kala ah haddana mugdi lagu dhisayaa mugdi wax lagu dhisayna ma rabno xawaadla ma ogola xawaadla wuxuu diidanay hiiraan waa diiday mana aqbalayno heshiis xalaal ah oo maalin caday la galo oo cidna aan lagu dulmin oo si cadaalad loo qaybsado maaragtay maamulkaas waxaan ahayno xawaadla aqbali doonaa uma jiraan joogo oo xil raadiska waxaan leenahay daayira carbeedka joohir joogo xukumi maysaane dadkaad xukumi lahaydeen way diiday dadkaan cadaalad bay rabaan waxay rabaan maaragtay nidaam xalaal ah oo dhisanay heshiis lagu yahay bay rabaan intaas waxaan leeyahay nimanka jooga joohir dawladda federaalka madaxweynahana waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxweynuhu xisaabka Soomaaliya hadda dawlad ku tahay waa 4.5 wax la yiraahdo sidaas lagu heshiiyay muddo dheer kadib burbur kadib saami qaybsiga Soomaaliya waa intaas 4.5 tana waxa raacayo lamida siday u dhisayeen isteediyadu waxay ka turjumaysaa 4.5 xisaabka ah waay xisaab dawladnimo oo muwaadinka codkiisa inta uu dhiibto madaxweyne ku doortaa kama jira dalka adiga laga rabay inaad gaarsiido waanad ku fishilantay waxaan ku leeyahay marka Soomaaliya 8 gobol bay ahayd 8 kamid ah hadda waa ka maqan tahay dawladdaada Hargeysa iyo Burco Boosaaso iyo Kismaayo hadda ma xukumo dawladdaada hoggaanka ka tahay ma xukunta hadda 4 gobol oo kala joogtaa haddana waxaad bilowday inaad faragelin ku sameeydo isteediyada oo heshiiskoodii aad ka hoos qaado arrinkaas marka waa arrinkii magacaada dawladnimo ma bahayside arrinkii magacaada meeshu ku dhima lahaa weey waxaan ku leenahay marka farmaajo Hirshabeelle faraha kala bax dadka jooga asaa heshiinayo state-ka asaa dhisanaya xisaab sax oo xuquuq iyo sharciga uu ku dhisanaya la bax haddaad kala bixi weyso hiiraan wuxuu noqon doonaa gobolkii shanaad oo ka baxa maamulkaada warkaas hoos loo sheegi maayo 3 gobol kugu soo hari doontay magacaada dhinto arrinkaas faraha kala bax baan ku leenahay farmaajo waa tala walaalnimo Soomaalinimo siyaasiyiin mar horaad kala tagteen shacabka kalsooni yar kugu qabay shacabkii reer Hiiraan arrinka joohir hadaad ku dhiirato kalsoonida way kala noqdeen intaasaan ku sheegaynaa horta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegaa farmaajo Hiiraan waa laga farmaajeysnaa 15 maalmood ka hor wixii ka hor waa laga farmaajeysnaa laakiin hadda waa laga forjeysnaa wallahi oo billahi talaa farmaajo waa loo forjeysnaa dad heshiiyay ayaga wax meel isla dhigtay laba gobol degan walaale ah waxay ku heshiiyeen maanta in meel kale inta loo raro oo waxaan loo joogin iyo suuqnimo kale inta la sameeyo wax aan raali ka nahay mala waana wax laga gubto waana wax qadiyada diidayso wax islaamnimada diidayso heshiiska oo qorey asoo maqal oo jira asoo muuqaal oo jira asoo siixan u yaala wax qarsoodi amala awala suluugsaneen asoo saas aan suluugsaneen hadan maanta maxaan qabatay meeshii ka sii hoos iyo dhulka hoostiisa maahano anaga joor waa ka safri karnaa laakiin wax u sheega sidnada meesha socota xawaadla leh masaameynaysa abgaalo adigana gobolka banaadir way rabtaa wallahi oo billahi talaa wax joor lagu soo cilina gobolka banaadir oo ka qaylinaysa aan rabaa in dhulka lagu daro waxaan leenahay asgarabsanno walaalayaalo waxaan ku heshiinay aan shalay meel marino yaanan cid anaga na koras iskandirin abgaal Cismaan iyo xawaadle waa diris intaasoo kiiloomitir diriskiin waxay shalay ku heshiiyeen waxaan rabaa inayna cid qodqodo iyo cid meel kale ciyaar suuqnimo inaan marnaba lagu dayin wassalaamu calaykum waraxmatullaah